بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا قصة aad cajiib u ah oo ka hadlaysa nin hal maalin ku furay shan haweeney ah misana hal saac gudaheeda ku furay qisadan waxay u dhacaysaa sida tan qisadan waxa inooga sheekeynaya caalimka weyn la yiraahdo asmaci waxa ragga luqada carabiga aad ugu fiican joogana waqtigii uu xukumi jiray boqorkii la dhihi jiray Harun al-Rashid ayuu markaa qisada u sheegay nin noocaas ayaa jira marka Harun al-Rashid ayaa wuxuu yiri sidee ku dhacday ninka waxa la ogyahay islaamku in uu guursan karo afar xaas kaliya sidee ku dhici kartaa in shan xaas oo furo marka asmaci wuxuu ku yiri nin ayaa wuxuu ka afar xaas marka ninkii ayaa maalin u soo galay gabdhihiyo qaylinaya ama doodaya kana doodaya nolosha adag ee ninkan ay kula nool yihiin ninkan wuxuu ahaa nin aad u dabeecad xun kadib waxa dhacday in uu yiri ninkii maanta doodan iyo qayladani inay socoto ma fiicna marka waa inaan soo afjara marka ayaa mid kamid ah xaaskiisii ayuu wuxuu yiri arintaan oo dhan iyo doodan oo dhan adiga sabab u ah sidaas awgeed waad furan tahay marka midaas mid saaxiib la ahayd oo xaaskiis kamid ahayd ayaa iyaduna hadasho waxay tiri oo ma sidaan degdeg ah ayaad ku furtay gabadhii marka ayuu yiri hadana adigana waad furan tahay marka saamid saddexaad ayaa iyadana hadasho waxay tiri oo labadii xaas oo aad ku jecleed oo ku roonay miyaad furtay ma waxaad weysay wax furin karoon markaasuu yiri islaan yahay tirinaysa dadkaas wanaagiyadoodii adiguna sii raac oo adiguna waa furan tahay marka waxaa dhacday isla markiina hadana waxa dhacday tii saddexaad in ayaduna sidaas ay tiraado ayadiina uu meeshaasi ku furo tii afaraad ayaa hadasho waxay tiri ma ayukana ma miyaad furtay soo ma fiicneen inaad go'aan kale aad qaadatid marka ayuu ninkii wuxuu yiri adiguna waad iga furan tahay marka waxa la sheegay in isla markaas gabar xaas ah oo nin kale oo qabo ay meesha soo istaagtay marka ayay arintii dhageysanaysa waxay tiri arintan weligeeda carabta dhexdeeda kama aysan dhicin in mataqaana xaaskaagii oo dhan aad hal saac ku furto markaasuu wuxuu yiri reeb malihide adigana waad furan tahay haddii ninkaagu uu arintaasi ii fasaxo marka waxa dhacday isla markiiba ninkeedii ayaa yimid oo hadalkii dambe maqlay wuxuu yiri arintaas raali baan ka ahay inaad macnaha aad iga furtay marka meeshaas waxay ku noqotay tii shanaad oo ninkaasi uu furo marka qisa waxay ahayd aad cajiib u ah aad ay u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.